wararkaanu idiin hayno kuwooda ugu doorka roonna waxaa ka mid ah guddiga ururinta hantidii la boobay ayaa yeeshay kulan wada tashiya oo ku saabsanaa sidii loo soo celin lahaa hantidaasi qaar ka mid ah dadkii ka qaxay rabshadihii dhowaan ka dhacay magaalada Jigjiga ayaa dib ugu soo laabanaya magaalada hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo xakameeyo cudurka Ebola oo laga helay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaanu daawadayaal xilli tabinteena wareed idinku haynaa anigu Cabdirasaaq Ibrahim Claas Cabdirasaaq Daaja ahna haduu eeba idmo waan idin la socodsiin doonaa وهاجاك داوديال مركله isku soo noqod wacan oo wanaagsan haatanna ku soo dhawaada qodobadii warka oo faahfaahsana guddiga ururinta hantidii la boobay ayaa yeeshay kulan wada tashiyo oo ku saabsanaa sidii loo soo celin lahaa hantidaasi sida uu inoogu waramayo wariye Mustafa Yusuf qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Jigjiga oo siyaabo kala duwan ku muujiyay sida ay ugu xun yihiin dhibaatooyinka ka dhacay magaalada Jigjiga iyo qaar ka mid ah magaalooyinka kale ee deegaanka ayaa waxay sidoo kale shacabku iyagoo isku abaabulaya ay wadeen dadaalo kala duwan ay ku taageerayaan shacabka kale ee walaalahooda ay waxyeelada ka soo gaadhay dhibaatada dhacday si ay uga soo kabsadaan waxay sidoo kale shacabka magaalada Jigjiga ay asaaseen guddi ka shaqeysa soo ururinta hantidii la boobay iyadoo guddigan uu ka kooban yahay wax garadka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga haddaba guddigan oo yeeshay kulan wada tashi oo kaga wada xaajoonayeen sidii looga howlgali lahaa arintan ayaa waxay guddigani kulankani ay yeesheen baaq ay ka soo saareen ku sheegeen in muddo 7 gudihiisa lagu soo celiyo hantidii la boobay cidii haysa xogo ku saabsan hantida la boobay in ay la soo xiriiraan guddigani waxa uu sidoo kale guddigu mahadnaq ballaaran u jeediyay dadkii doorka weyn ka ciyaaray badbaadinta hantida naf iyo maalba isugu jirta ee shacabka walaalahooda waxaan aad iyo aad mahad ugu soo jeedinaynaa oo mahad celinaynaa cid kasta oo alaab soo celisay waan u mahad celinaynaa ta kale qodobka labaad aan ka hadlayaa waxa weeye dawladda deegaanka Soomaalida iyo guddiyada faraha badan ee nabadgelyada iyo mataqaana ururinta mataqaana hantidii la dhacay go'aamada ay soo saareen waxa weeyaan baaqa sidan u qorman in la soo celiyo hanti kasta oo la dhacay muddo 7 maalmood ayaan baaqa u qabanay cid kasta oo hanti dhacday inay soo celiso laguna soo celiyo masaajidada laba ay ka mid yihiin qabalayada saddex ay ka mid yihiin guddiyada loo aas-aasay in ay hantidaas ururiyaan hanti cadaan ah oo lacag ah cidda qaaday waxay ku celin kartaa oo kaliya goobtii laga qaaday alaabta la ururinayo ee mataqaanaa yaryar iyo gaadiidka 7 maalmood cidda ku soo celin weyda waxaa loo aqoonsan doonaa in uu yahay dambiile laguna qaadi doono dambigaas sharcigana la hor keeni doono sidaas daraadeed inta uuna qofku noqonin dambiile hanti dhacay waxaan codsanaynaa oo aan baaq u soo jeedinaynaa haddii ay noqoto kuwa la geeyay gobolada iyo haddii noqoto kuwa la geeyay degmooyinkii iyo haddii ay noqoto kuwa xaafadaha lagu haysto in ay goobaha loogu talagalay si sax ah isaga soo diiwaan galiyaan waxaan ku wacdigeynaa dadweynaha wixii wax qaatay inay si dhaba u soo celiyaan haddii taas cidii fulin weyda talaabo dhaba laga qaadi doonaa midda kale waxaan ku wacdigeynaa dadweynaha cid kastoo maaragtay xoogaal ka ah ciddii wax qaadatay ee meel ka og inay la soo xiriiraan guddida maaragtay hanti ururunta oo wada shaqayn fiican maaragtay arrintaas aynu ka yeelano waayo arrintan maanta arrin maaragtay taariikhda maanta aad iyo aad ugu xun weeye khaasatan dadka magaca Soomaalida sheegta meel kastoo joogaanba waa arrin shaabad ku ah arrintaas shaabadda inagu dhacday baa la doonayaa qof kasta dhinaciisa wixii waajibaadee saaray inuu ka qayb qaato waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaalida waxaynu lahayn dhaqan wanaagsan oo islaamnimo leh oo laynagu yaqaano oo ixtiraam leh oo wada noolaansho leh oo isqadarin leh oo waxa weeyaan iscaawin leh ayaan lahayn waxa inagu dhacayna waxa weeyaan wax maanta taariikhda inoo galay weeyaan waxaan ka codsanaynaa shacabkeenna wixii noocaas ahaa dhacay sidaan boogihii u dhaylahayn ayay waxa weeyaan dad isxilqaamay oo ganacsatadeenna iyo culimadeenna iyo aqoon-yahankeenna badan ayay u istaageen waxa weeyaan guddidu way shaqaynaysaa hantida waxa weeyaan ciddii lahaa baa loo celinayaa inaad waxa weeyaan innaga oo waxa weeyaan dareen wadaniyadeed leh oo waxa weeyaan hantidan ay xaaraan tahay dad masaakiina oo walaaladeena oo ka awow nala nool ah oon isla deganayn
oo waxa weeyaan aynu ahayn daris ahayn hantidoodii weeyaan waxay haystaan iyo waxay xidhan yihiin mooyeen wax kale oo ay haystaan maanta ma jirto waxay maanta mas'uuliyaddu saaran tahayna waxa weeyaan waa shacabka Soomaaliyeed ee dadkaasi ay dhex deganaayeen ku dhex noolaayeen sidaa daraadeed dadkii wax soo celiyay way mahadsan yihiin dadka kale soo celinina waxa loo qabanayaa oo guddidu u qabanaysaa 7 cisho inay ku soo celiyaan sidii guddiga ugu horeeyay ay sheegeen waxaan u qabanay dadka wax qaaday 7 cisho 7 cisho wixii ka dambeeyay dambiilayaal bay noqonayaan laakiin 7 cisho gudahood wax dambiyo lama raacayo waxaan kaliya ka codsanaynaa inay noogu qoraan meesha ka qaadeen inay calaamad ku qoraan haddii magac garanayaan magacayna ku qoraan haddii kale meesha magaceeda dukaanka magaciisa ku qoraan saan dadka u siino inay iskaga khaldamin taasi waa codsi weey qaar ka mid ah dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dhibaatadii dhacday oo ka soo qayb galay kulankani ay yeesheen guddidan ayaa iyaguna aad u soo dhaweeyey tallaabadani ፕሮግራም ላዘጋጁልን ጉዳታችን ተሰምቷቸው ላቀናበሩልን ለጅጅጋ ሀገር ሽማግሌዎች አመሰግናለሁ። ሁሉም ሰው ክፉ አይደለም፣ ሁሉም ሰው ደግሞ ጥሩ አይደለም። አዎ በጎ ስራ ለሰሩ ሰዎች እግዚአብሔር ብድራቸውን ይክፈል። dadkii kulankan soo diyaariyey isla markaana ka damqaday dhibaatadiina soo gaadhay oo ah waxgaradka iyo odayaasha magaalada Jigjiga aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa dadku dhammaantood ma wada xuma oo waxaa jira dad tiro yar oo xumaanta ka shaqeeya waxaana leeyahay dadkii fiicnaa ee wanaagga ka shaqeeyey Allah ka jazaaysiiyo wixii ay qabteen run ahaantiina mahadnaq ballaadhan ayaan u jeedinayaa waxay nagu ururiyeen oo ay nagu hayeen guryahooda muddo gaadhaysa ilaa 12 maalmood waxaan sidoo kalena mahadnaq ballaadhan u jeedinayaa odayaasha iyo ganacsatada magaalada Jigjiga ee iyaga oo dadkii ay dhibaatadu gaadhay ku gargaaray raashinka kala duwan oo ku gaadhsiiyey goobihii lagu ururiyey ee lagu hayay dadkan guud ahaana dadkii noo muujiyey dareenka bani'aadantinimo waan uga mahad celinaynaa run ahaantii dhibaatadiina soo gaadhay waxay ahayd mid aad u daran waxaana isweydiin mudan sidii loo tirtiri lahaa raadadkii ay nagaga tagtay dhibaatadaasi taasna waxaan aaminsanahay in culamaadudiinka iyo odayaasha waxgaradka ee magaaladu ay ka howlgali doonaan waxaa iyaduna isweydiin mudan sidii noloshooda dib loogu soo celin lahaa oo ay uga kabsan lahaayeen dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay taasna odayaasha waxgaradka ah iyo culamaadudiinka inay ka shaqeeyaan ayaan u soo jeedinayaa annaguna waan la shaqayn doonaa oo waan garab istaagaynaa waxaana xusid mudan in dhibaatadii ka dhacday magaalada Jigjiga ay jireen shacab iyagoo iskooda isku ilqaamaya kaalin weyn ka ciyaaray sidii ay naftooda iyo hantidoodaba u badbaadin lahaayeen shacabka kale ee walaalahooda waxaana ka mid ah dadkaasi mudane Rashiid Bacdar oo kaalin mugla ka ciyaaray badbaadinta hanti lagu qiyaasay malaayiin bir oo isugu jirta lacag kaasha noocyada kala duwan ee dharka iyo weliba makiinadaha dharka lagu talo alaabtan aad arkaysaan run ahaantii iyo afartii wiil ee iibinaysayba markay dhacdadu dhacday oo ay bilaabatay bay ila soo hadleen waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaad naga soo gaadho inaan noolaano un alaab iyo lacagtoona kaminan hadleen marka ayada dhibaatadu mid waxay ahayd waqti yar gudaheed wax badan lagu baabiinay bay ahayd aniga iyo familkayga iyo ehelkayga halkaas teleefonkii igu soo dhacay laga bilaabo orodkan ka orodnay waxaan isku danay inaan ka gaadhno ilaahayna wuu naga gaadhsiiyey iyagoon la dilin markaa kadib waxaanu xoogga saaray inaan naftooda iyo maalkoodaba badbaadino waanu ku guulaysanay ilaahay baan ugu guulayay alxamdulilah lacagta aanu soo badbaadinay waa 700 oo kun weeye dharka kabaha shaararka suudadka oo ay tamyadaas kala gedisa ka kooban haddii qiyaasta dukaanka ciddii geli jirtay unbaa garan laakiin waxaa lagu qiyaasi karaa 6 milyan alaab dhan baa lagu qiyaasi karaa iyaguna halkii baan ka soo qaadnay 4 wiil iyo alaabtoodii oo dhammaystiran oo harqaanadii iyo telefishinadii ku jiraan ilaahay wuu nagu guuleeyey inaan soo badbaadinno oo aan keenno gurigayga ganacsatada hantidooda ku badbaaday dadaalka iyo walaaltinimada ay u muujiyeen shacabka walaalahooda ayaana ka mahad celiyey አቶ ረሺድ ባዕደር የሚባል ግለሰብ ጋር ደውለን እሱ ነው ነፍሳችን ያተረፈልን ንብረታችንም እሱ ነው ያዳነልን ቤቱም 3 ቀን አሳድሮን ፍራሽ ሰጥቶን ከነ ቤተሰቦቹ እየተንከባከቡን ምግብ እያበሉን እያጠጡን እነሱ ናቸው ነፍሳችን ያዳኑን
markii ay dhibaatadu dhacday ayaa waxaan wacnay oo aan la hadalnay Rashiid Bacdar isaga ayaana dhibaatadaasi naga soo gaadhay oo na badbaadiyey naftayada iyo hantidaba gurigiisa ayaanan muddo 3 maalmood ah ku sugnayn oo cunto iyo wax walbana na siinayay isaga iyo qoyskiisuba isaga ayaana noo badbaadiyey alaab aad u tiro badan wax yar oo la qaatay waxaan ka ahayn gurigiisa ayayna ku badbaaday alaabtayadu waxaa sidoo kale noo badbaaday lacag kaash ah oo ay dad lahaayeen oo dhannayd 500 oo kun oo bir iyo weliba 200 oo kun oo bir oo aan anagu lahayn lacagtaasna uu noo badbaadiyey sidaa awgeed waxaa jira dad badan oo aad u wanaagsan guud ahaan hantida noo badbaadayna waxay gaadhaysaa ilaa 5 milyan oo bir እሺ እኔ ጅጅጋ ነዋሪ ነኝ ጅጅጋ ከ20 ዓመት በላይ ኖር ያለው በጅጅጋ እንደዛ አይነት ታሪክ አይተን ማናቀው ነገር ነው ስለዚህ አሁን ጅጅጋ ላይ ያው ትልቅ ችግር ደርሷል እንግዲህ ያው ያመጣው ነገር አንዳንዴ ከምናቃቸውም ሰዎች ጥሩ መጥፎ ሰዎች እንዳሉ ጥሩ ሰዎችም ስላሉ anigu waxaan ka mid ahay shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga waxaanan ku noolahay magaalada Jigjiga muddo ka badan 20 sano dhacdadii ka dhacday magaalada Jigjiga wali taariikhda kumaanan arag intaan joognay magaalada dhibaatadii ka dhacday magaaladana waxay ahayd mid aad u daran maadaama ay joogeen shacabka walaalaheena ee Soomaalida kuwa aan isgaranaynay iyaga ayaana badbaadiyey oo intay noo yimaadeen guryahoodiina geeyey shacabkuna dhammaan isku wada mid maaha iyaga ayaanan ku badbaadinay dhibaatadii dhacdayna maaha mid ay sameeyeen dad matalaya guud ahaanba shacabka ugu dambeyntiina guddigan ka shaqaynaya soo ururinta hantidii la boobay ayaa shacabka magaalada ugu baaqay in wixii hanti ah ee laayo la soo celiyo laguna soo hagaajiyo masaajidada ku yaala magaalada Jigjiga iyo qabiilayada xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladu amaba ay ku soo hagaajiyaan xubnaha guddigan qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahaniinta ah ee u dhashay deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa cadeeyay sida ay uga xun yihiin rabshadihii dhawaan ka dhacay goobo ka mid ah deegaanka rabshadahaasi waxa weeyaan runtii waa wax aad looga naxweeyaan wax deegaankeena hore u soo marin maaha wax ummadda Soomaalida ay dhaqan u leedahayna maaha taariikh xumo aan ma taqaanaa aad waxyaabahan ka saxan lahay waxa ka mid ah taariikhda diiwaanka inoo galay dadka Soomaalida laakiin dadka Itoobiyaanka iyo qowmiyadaheena kale waxaan u sheegayaa dadka Soomaalidu waxayna dhaqan u lahayn dadka Soomaalidu waa dadka kaliya ee lahaaba xitaa dagaalka xeerar Geneva Convention iyagoo dhaqanka u leh ma taqaana dhaqankooda caadiga ah iyo Geneva Convention xad qarameedka Geneva iyo dhaqanka Soomaalidu is waafaqsan yahay waayo waxyaabo waxa jiraba hadduu dagaal dhaco xitaa Birmageyda in dadka la laayo dadka masaakiinta la laayo in guryaha la gubo in kaniisada la gubo waxaas wax dhaqan inoo amaaha wax dad Soomaali ay sameeyeen maaha waana in sida loo fahmo waxaan aad uga xumahay dhibaatadii Jigjiga gaadhay 3 daqiiqo gudahood lagu burburiyay caasimadii Jigjiga ahayd 3 daqiiqo wistiin lagu faraseeyo waa arin aan aad iyo aad uga xunnahay aqoon-yahan ahaan iyo dhammaan shacabka deegaanka Soomaalidu ay ka xun yihiin dadkii walaalaheena ay nala deganaa sidii fawaaxishada ahayd loo galay waa mid aanan marnaba soo dhaweynayno aad iyo aad uga xunnahay inaanu ka xunnahay 100% ka aqoon-yahan ahaan ka bulsho ahaan anagoo bulshada afkeeda ku hadlayna aqoonyahanka ku hadlayna 100% baan arinta ka xunnahay waana wax aad looga tiiraanyoodo waxaan halkan tacsi uga diraynaa dadkii ku naftooda ku waayay kuwii gaarigu ku qallimay Soomaalida ahaa iyo kuwii kale ee dadkii burinka ahaa ee ma taqaana la soo abaabulay ay ka dambeeyeen iyagana aad baan uga xunnahay wax dhaqan inoo ana ma aha waana waxaan aad uga xunnahay oo halkan tacsi uga diraynaa dadkii dhibaatada ku gaadhay halkan sidoo kalena waxa ay soo dhaweeyeen isbedelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka gaar ahaan deegaanka Soomaalida Itoobiya isbedelkan hadda kana qaaday uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha cusub Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waa mid aad iyo aad aan u taageersanahay waana iftiinkii ugu horeeyay dimuqraadiyadeed Itoobiya u dhashay baan oran karaa way hadda ka hor Itoobiya dimuqraadiyadna ma ahayn socialistina ma ahayn marka waxa la oran karaa Itoobiya hadda un bay wahanaan dimuqraadi u bilowday hanaanka dimuqraadi Itoobiya u bilowday waxa loo baahan yahay in la garab istaago in lagu haftana ma aha dimuqraadiyadda lagu hafto waa in dimuqraadiyadda dawladda marka dhakhtarku uu qorayo prescription-ka waa inuu u qoro nidaam maintenance ama drug half life wax ku salaysan waa in markuu dhakhtarku qorayo dawada uu leeyahay 3 waqti sidaa u liq TID ama KID ama BID qofku hal mar dawada ma liqi karo marka nidaamka dimuqraadiyaddu waa la soo dhaweeyni waana waxa kale ee wadankani ku wada socon karo laakiin in lagu hafta looma baahna gaar ahaan inagu deegaankeena Soomaalida dimuqraadiyaddu ma soo marin marka inagu dimuqraadiyaddu waa inay noqoto mid inoo soo kordhin karta inaan wadankeena samata bixin karno inaan si xor ah madrag isugu iman karno in si xor ah wax loo wada gorfayn karo in la iska daayo caadifada iyo waxyaabaha ku saabsan
marka nidaamka dimuqraadiyaddu waa inuu noqdo nidaam si fiican wax loo wada wadaagi karo oo dadku ay fikirkooda xor u yihiin oo la wadaagi karo waxaan aad ugu faraxsanahay markii ugu horeysay STV inaan halkan ka warrami karno inagoo ka hadlayna nidaamka dimuqraadiyaddu taalifteedu waa isbedel bilow ah idinkuna waa ina sii wadaan isbedelkaas maanta sidii lagu jaanqaadi lahaa waa in gacmaha la isqabsado arrinta kale ee muhiimka ee loo baahan yahay in iyadana laga hadlo waa in isbedel dhab ah xukuumaddan hadda uu Axmed hogaaminayo isbedel dhab ah oo shacabkani ay ku qanacsan yihiin in la keeno oo uu reform la sameeyo waa arrin laga maarmaan ah dhammaan dadku waa afduubnaa cidii loo afduubnaana waa loo yahay dadkii afduubnaa laftooda waa inaan soo dhaweeyno oo fahnay inay afduubnaayeen iyaguna marka hanaanka lagula qabsan karo ee maanta Ethiopia aan kula qabsan karno laba qodob ma waa midkaas waxa weeyaan gudoomiyaha cusub ee xisbiga madaxweynaha cusub waxa looga baahan yahay wadadii dadkan ay ku hogaamin lahayn in la yimaadaan wadadaasi waxa weeyaan dadkan wuxuu u baahan yahay isbedel waxa loo baahan yahay reform in lagu sameeyo xisbiga shirweyne xisbi in la qabto madrag siyaasadeed oo ballaarin la isugu yimaado doodo badan in la qabto in isbedel lagu sameeyo dhammaan ama kabinayga ha noqoto ama guddiga fulinta ha noqoto ama golihiisa dhexe ha noqoto xisbiga in dib loo habeeyo in xisbiga lagu soo daro dad aqoon-yahana oo fikirkoodu caafimaad qabo oo dadku wataan oo dadku soo doorteen dadka xukunka qabanaya ama xisbiga soo galaya ama kabinayga laga dhigayo waa inay yihiin dad ku yimid khibrad iyo aqoon iyo sumcadda bulshada ay ku dhex leeyihiin marka fikirka waddankeena lagu badbaadin kara deegaankeenu gudoomiyaha cusub iyo madaxweynuhu waa inay la yimaadaan siyaasad reform ku salaysan oo xisbiga iyo dawladda dib loogu habaynayo oo aan waqti dheer qaadanin dhinaca kale maray dhalinyaradani ka hadlayeen nidaamka iscafiska ee dalku qaatay ayaa waxay tilmaameen in loo baahan yahay in si hore loogu socdo loo baahan yahay in la dhaqan geliyo nidaamka iscafiska deegaankan horta wuxuu u baahan yahay in la qaato principalkii Master Mandela ee ahaa Master Mandela wuxuu yidhi markii uu ururka ANC markuu doorashada ku guuleystay uu qabtay wuxuu yidhi haddaan dib u eegno dhibaatadii dhacday ma wada helayno wiil madow ah iyo gabadh cadaan oo wada socdo gamcaha haysta marka wuxuu yidhi wixii hore u dhacay waa inaan taariikh ka dhigtaan marka aqoon-yahanka iyo odayaasha iyo bulshada indheergaradka wixii hore u dhacay oo dhan waa in taariikhu laga dhigo waa in maanta way forward loo hadlo waa in la iska daayo waxyaabaha caadifada iyo waxyaabaha ma taqaanaa imika tafaraaruq fara badan baa dhici kara dimuqraadiyadda inaan ku hafanno ma aha waa inaan uga faa'iidaysano si wanaagsan marka waa in aan hore u soconno aqoon-yahanku waa inuu fikir constructive la yimaado oo bulshada wax u qabanaya aqoon-yahanka waxa looga baahan yahay kale tanaasulaad baa looga baahan yahay ninka aqoon-yahanku haddii imika anigu aan xil daydayo waddanka wax kama dhigi kara dee laakiin anigu waa inaan tanaasulaad la imaadoon xil iska daayo kolka hore anigu ujeedadii waa inay noqoto aqoon-yahan inuu kursigan ku fadhiisto shakhsi muwaadina oo ummaddan ku hagaya rabitaankooda horumarkooda wanaagooda oo iyaga mas-uulka ah marka anigu taa aan la imaado ayaa waxay noqonaysaa in la helo hanaan lagu wada socon karo laakiin haddaan anigu idhaahdo kursi baan doonayaa kursigu qof unbuu qaadi karaa dee waa inaan tanaasulaad sameeya marka anigu laakiin anigu maxaan doonayaa keliyata kursigan inuu ku fadhiisto qof imateli kara waxaan markaa leeyahay cid kasta oo deegaanka Soomaalida u dhalatay oday iyo islaan iyo gabadh iyo hooyo in gacanta la isqabsado laga soo jeedsado wixii dhacay uu dhacay oo reedi seen u soconnaa seen uga gudubnaa dhibaatadan seen wada u qaadnaa waa arrinta laga marmarka in la isweydiiyo wada sidaan u qaadayna waa inaan iscafino anigu xabsi baan ku soo jiray muddo dheer 3 sano iyo something aniga siraaji iyo asxaabtayda fara badan oo muddadaan xabsiga ku soo jiray xaalada adag oo kala duwan baan nala soo darsay aniga shakhsiyan haddaan ka hadlo tusaale ahaan baan idiin tusayaa dhibaatadu meel kasta sidii u gaadhay iyo sida loo rabo in la isu cafiyo maanta aynu wada u qaadi lahayn tusaale ahaan aniga gabadhaydii oo dhimatay waxaan ogaaday muddo sanad kadib ayaan ogaaday xuquuqul insaanka heerka uu gaadhay inaan ogaan waayo xaaskaygii oo dhimatay Allah u naxariistay muddo sanad kadib inaan ogaado ayay igu qaadatay dumaashidayo haddana ilmahaygii haysay waxaan ogaaday muddo haddana 2 sano oo kadib oo kale inaan ogaado geerideedii taasi waxay saameyn ku yeelatay aragtidaydii iyo dhibaatada ila soo daristay nololeed waxaan ka wadaa ama aan tusayaa halka ay gaarsiisan tahay xuquuqul insaanka iyo dhibaatadii deegaanka ka soo dhacday maanta anigu cidna shakhsiyan baan ahayo cid aan maanta wax u haysto iyo cid aan maanta ka argoosa isleeyahay ilaahay baa igu ogo ma jirto waa in la iscafiyo nidaamkan cafiska ee principalka ma taqaanaa federaalku ay qaateen kililkeenuna waa inuu qaato kililkeenu waa party ka mid ah Soomaaliya maaha waa Ethiopia buu ka mid yahay marka nidaamkan iscafisku waa waxa kaleetay dadku ku wada socon karaan qofka la dhibaateeyay qofkii dhibaateeyay waa inuu cafiyo diinteenna iyo dhaqankeennana sidaa oo inu ku soo dhaqmi jirno
sidoo kalena waxa ay soo dhaweeyeen ururka ONLF waxayna ugu baaqeen sida ay isbedelkani dalka ka dhacay uga faa'iideysan lahaayeen maadaama ay tahay fursad muhiima arrinta aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ururka ONLF waa urur qadiimi ah muddo dheer soo halgamay sharaf leh waxaana ururka ONLF ka mid noqday uu ninkii geesi xabad ridi karay marka anu ururka ONLF waxaan halkan uga jeedin lahaa Ethiopia in badan bay ka maqnaayeen siyaasadda Ethiopia maanta ay kula qabsan karaani waxa weeyaan oo kaliya taa in iyagu xukun ayna diideen iyo waxyaabo kale iyagu waxa looga baahan yahay siyaasadda Ethiopia kula qaybsan karaan inay heshiis caadi ah la galaan Ethiopia ka bacdi in ay wadanka yimaadaan xafiisyadooda inay furtaan nidaam dimuqraadi inay la yimaadaan labada sano ee hadhay ee ka hadhay doorashada Ethiopia in ay dadkooda hoosta ka soo bilaabaan kaadriskoodii bilaabaan inay ma taqaanaa bayskooda soo dhisaan in bulshadooda ay soo dhex galaan saasay kula qayb qaadan karaan waxa kaloo ka digaya ururka ONLF oo uga digaya in dad magacooda isticmaalaya inay ma taqaanaa magacooda isticmaalaan sharaf darray ku tahay marka waxaan loo baahan yahay arrinta mowqif cad inay ka bixiyaan oo media ay ka hadlaan oo dadka magacooda isticmaalaya ee tuugta ah hadda bangigii la gubay iyo kaniisadii la gubay baa lagu qorayaa jawxo ONLF baa meesha gubtay taana markaa inay si cad mowqif ka qaataan oo dadka magacooda isticmaalaya la hadlaan ayaan u soo jeedin lahaa qaar ka mid ah dadkii ka qaxay rabshadihii dhowaan ka dhacay caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa dib ugu soo laabtay dadkii carray baxsaday baan ahay laga argagixiyay ee la yiri ee qaxana lagu riday ee ka sokaynin dhagax buur haddana nabadii iyadoo la sugay soo noqonay magaaladii waa la xaaqay waa la hagaajiyay kaal iska arag bay u shaqaynaysaa anigu waxaan ka mid ahaa dadkii laga cabsi galiyay ee la yiri halkan waxbaa ka dhacaya ciidamadii new booliska ee federaalka ayaa isgelaya dadkii saa lagu cabsi galiyay baan ahaa dad badan oo aniga ila mid ahaa baa jiray marka sidaas ayaan maaragtay cabsiba yaa gashay kolkay cabsidu gashay ayaan xagga buuraha u kacay markii hore waan cararnay annaga iyo carruurtuba waxaan noo cararnay wax la noo sheegay wax la yidhi waa la iskelayaa waan cararnay brobagandadani waxay ahayd mid shakhsiyaal kooban ay suuqa geliyeen khaasatan xaafadaha ayaa laga faa'iideysanayay ee magaalada Jigjiga waxaan arkay rag maalinta oo dhan iska sharaabi oo iska bunayn oo magaalada joogo markay xaafadii imaadaan u imaan xaafadii iyo carruurtooda oo xidhxidhan oo waa la isgelaya oo xaafadooda u soo galban la waxay ku leeyihiin ciidanka ayaa isku dhacaya waana been xaafadahan ku wareegaysan oo haweenka iyo carruurtu ma laga faa'iideysanayay waxaan ahay dadkii magaalada Jigjiga joogay waxa la igu yiri waa la isdagaalayaa ciidankii militariga iyo ciidankii new booliska isdagaalaya carruurtii baanu ka haysanay goday baanu tagnay waxaan ka mid ahay dirawlinta magaalada Jigjiga waxa laga dhex shaqeysa ee basaska wata waxa weyn dhibaatada yareed ee koobnayd ee ka dhacday magaalada Jigjiga waxa jirtay dadka inaan muddo 5 bari xagga u sii gureynay halka iyo ma garanaysaa wajaale waxa la yiri new booliska iyo militariga baa isgalaya Ethiopia baaba haysa la yiri saasi dadku ku yaacayeen dabadeetana waxaan u soo noqonay nabadgelyo jirto wax dhiba jirin gurigayga iyo ciyaalkayga baan ku soo noqday iminka waanu iska shaqaystaa manaariyaga Jigjiga aanu ka shaqaysanaa nabadgelyo weeyaan anu magacayga waxa la Khadar Cabdullaahi Maxamuud ayaanta dhaweeyay maalinka barkeed shilku dhacay ayaan dad propaganda wada ayay waxay dhahan kala carara magaalada wala isku galaya oo ciidanka new booliska iyo military isgalaya marka annagu waan cararay oo qabdaaran tagay markaan TV ka daawaday wadanka nabadgelyo ayaan deegaanka Jigjiga dib ugu soo noqday waxaan aragnay nabadgelyadii iyo amnigii in la sugay baan haddana aragnay marka maadaama oo de wadankayaga joogno meel kale oo qaxnana aanaysan annagu wadankayaga oo baan doonaynaa inaan joogno rabnaana waxaan ku soo noqonnay aqaladayadii waxaan ogaaday meesha inay nabad tahay magaaladu inay fiican tahay waxba inayna jirin sidaa darteed ayaan u soo noqday waxaan ogahay magaaladuna inay fiican tahay maasha Allah boqolkiiba boqol walaalayaal waxaan dadkii ku sii jiray magaalada ka qaxin ee nabadda aaminay ee ciidooda aamineen wax gaariyo waxaan bixin marka wadankaaga ciidaada inaad si nabada ku joogtay ilaahay weydiisatay inuu ilaahay wadankaaga ku dajiyo wadanka wax ka fiican ma jiro Jigjiga wallahi waxaad moodaaba caalamkaad moodaa caasimada caalamku waa weyn baad moodaa dariiqadii baabuurka meelood ka martay meelaysi dadka soo noqonaya say u socoto waxaa la tagayaa qaar wajaaliya xaggaas Hargeysa u qaxeen qaar ilaa gobolada dhagax burgoday afdheer meelo badan baa loo kala qaxay haddana islaamkiiba dabeen raad ma leh markay runtii ka daba tagtay dhammaan hadda waa la soo wada noqday dadkii madaxooda waa ku jaamacadaha dhiganaya ardayda qaxday xataa waxayna ahayd been xaafadaha iyo haweenka iyo carruurtu ku dhex wareegayso oo magaalada hoose ka jirin magaalada nabadgelyo oo dhib ka jirin ayaa u imaan xaafada oo qaxays intaan yaacnay baan haddana nabadgelyo markaan imka aragnay soo noqonay meheradaha iyaga iyo wax walba shaqaynaynaa jooguna waa la arkayaa wixii la sheegay labada ciidan baa isku dhacay la lahaana been bay noqotay marka imika nabad baan ku shaqaysanaynaa
dib baan ugu soo noqonnay dalkayagii maadaama aw dhulkii oo nabad aan aragnay imikana dadku way soo socdaan marka hore way sii socdeen waddanku waa nabadgelyo manaariyaga jigjiga dhexdeedana hadda joogaa markay ogaadeen inay waddankii inay jigjigi nabad tahay ay xasilooni tahay dadkii haddana imika way soo noqonayaan waxaa si xawliyah u kala socda ganacsiga suuqa xoolaha ee magaalada Jigjiga sida uu inoogu waramayo wariye Maxamed Xasan saylada xoolaha ee magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka ayaa waqti xadirkan ah mid aad u mashquul ah kadib markii magaalada ka dhaceen rabshado kuwa oo sababay inay xidhmaan isu socodka magaaladii kala iibsiga xoolaha balse saylada ayaa haatan ah mid mashquul badan oo sideedii hore ku soo noqotay isla markaana qaybaha kala duwan ee bulshada ay si nabadgelyo ah ku kala iibsanayaan xoolahani oo laga keenaya nawaaxiga magaalada Jigjiga gobolada kale ee deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee dalkeena Itoobiya haddaba mar aynu booqanay saylada kala iibsiga xoolaha ee magaalada Jigjiga ayaa waxa aynu waraysi la yeelanay qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo ka adeeganaya saylada isla markaana ku mashquulsan iibsiga xoolaha waxaan ku noolahay magaalada Jigjiga waxaan cadeynaynaa inaan wax dhibi ka jirin wax balaayo aanay jirin propagandaha iyo ma xaragtay waxa la wado oo waxaas oo dhan ay been yihiin dadkii maaragtay magaalada ka qaxay ay soo wada noqdeen sayladan joogaa oo ka shaqaysanaa waxa weeyaan tan iyo maalintii rashbadu dhacday iyo maalinka maanta waan shaqaysanaa oo maalintii u horreysay looda ka yar kala yaacno markii dambana soo noqono loodayadii ka xaysan iyo xoolaha iyagii mooyaane waxaan cadeynaynaa in wax rabshadii jirin ummadda waxaan anigu farayaa haddaan ahayd maaragtay xoogsatada ku nool saylada inay iska daayaan maaragtay propagandada oo iska shaqaystaan oo wadankooda aaminaan dawladdu waa dawladeeni weligan bay Itoobiya inoo ahayn balaayana inama hayso waxa weeyaan saylada xoolaha aad bay imika u fiicantay kala iibsigeedu safaradu way noo yimaadaan oo waa la iibsadaa waxay ka yimaadaan goday bay ka yimaadaan safarro xoolo laga keenaa waxa laga keenaa baabili waxa laga keenaa qoloji bay ka yimaadaan xoolaha sare waa la keenaa xagga Itoobiyada shishana annagana waa naloo yimaadaan waa laga iibsadaa tan iyo maalintii khaaquul ku dhacay saylada waan joogay waxaanu ka mid nahay dadka had iyo jeer xoolaha waxna sii iibiyo waxna iibsada markaa wax dhibaatihii kama jirto xataa hal maalin annagu kamaanaan oolin ka saylad ahaan xoolana nagama oolin maalin ay nagu yaraayeenoo dadku naga yarargaxay way jirtay balse laakiin intii ka dambaysay xooluhu way yimaadiin dadka ganacsatada ee iibsanayaana wuu yimaadaa wax dhibaato ahoo ka jirtaana ma jiro wax dhibaato ahoo ka dhacayna ma jiro dilaalinta suuqa xoolaha ayaan ahay dilaalinta suuqa xooluhu dee maalin horta siday wax yihiin bay ku iibiyaan xooluhu ilaa maalintii shaqaaqahan yar dhacay iyo ilaa maanta saylada waa la kala iibsadaa uun hal maalin ahoy faaruqday ma jirto oo indhihiin aad ku arkaysaan hal maalin ahoon ka baxnay ma jirto hal maalin ahoon xoolo jooginna ma dhicinba maantana idinkaa taagan oo arkaya nabadgelyo weeyaan waxba yaraatee ma garanaysaa laga shikiyo iyo wax ma jirto xaaladeedu wacanka xaaladda nabadgelyo ee saylada shimbir ma hardidaa deera ma hardido dhex mara oo wareegaysta meesha wax ku artaan annagaa been idiin sheegnay haddaad artaan wax quuqaalaba oramaa joogta xabashidii baa gadanaysa oo joogta annagaa joogna dee waa sidii ay ahaydu si ma ahayd waa sidii in adeer maalintay rabshadu dhacday iyo ilaa maanta hal maalin oo rabshadu dhacday mooye wax isbedeli waxba muuna ka iman ganacsigu si fiican buu socday xoolaha waxa laga keenaa deegaanka ilaa gobolada bari ama galbeed intaasoo deegaanba way ka yimaadiin xooluhu way isku yimaadiin ari iyo lo iyo geelba kala iibsiga xooluhu aad iyo aad buu fiican yahay si fiican buu socdaa nin walibana maqsuud buu ku yahay ka ganacsanaya iyo ka keenay meesha keenay iyo ka dilaalaya intuba si fiican bay ay nabadgelyaduna u degan tahay amniguna u fiican yahay xooluhuna ganacsigooduna u fiican yahay sayladu boqolkiiba boqolaad buu fiican tahay nabadgelyadu waa taam xooluhu way soo xiradaan iibkuna uu socdaa dhinac dakhliga haddaan ka warrabo dakhligu uu fiican yahay dakhliguna dadku rabitaankooda ku bixinayaan sidoo kale dakhligu maadaama uu ka mid yahay waa horumarka lagu qabanayo waxyaalaha waxbarashada kale caafimaadka biyaha iyo jidadka dadku iyagaa rabitaanka ugu bixiya iyaguna ku soo noqda dakhligu dhanka kale qaybaha kala duwan ee shacabka ayaa sheegay inay u diyaargaroobayaan munaasabadda ciidul adxa oo haatan fooda nagu soo haysa ciidda carafada ayaa loo diyaargaroobay adhiga
ayaa aad loo gataa neefka adhigii 2,000 iyo minaan milbu maraya ilaa 2,000 ilaa 2,500 ilaa 3,000 labadaba waa la helayaa kolkaa wax ashqaaqa iyo wax hadala iyo wax qoomiyadaha oo kala googaanimo jiro aad joogta oromaa joogta axmaaraa joogta dhabuub baa jooga nin kastoo etoobiyaan uu joogaa wax kasta xor buu yahay nin walba wuxuu doonu rabaa uu iibsanayaa kolkaa wax dhibaatay kama jirto waa nabadgeliyo ciidda arafara si fiican baa lagu diyaar garoobaya insha Allah waa loo diyaar garoobay wax balaayo aan haysaa maadaama inay jirin qixitaana aanu jirin magaaladu ay iska habitay wadankuna uu degan yahay waa la diyaar garoobaya waa la iidaya insha Allah xoolaha iibkoodina way bilaabmeen suuqa waa la kala ganacsadaa dharkii iida waa la keenay waxba yaraatay balaayo oo jirto oo dadka u sheegnay ma jirto bal ciidii diyaar garowgii sida xoolaha loo kala iibsanay ciidda waxa loo kala iibsanayaa sidii arifooyinka aad ku arki jirtay